بسم الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كسو دو ويل ميديا هدي اي تاي مركي كوو هوريسي هاد سو بوقتو كانال كينا سبسكرايب نو سار جنبليل كفرو سي ادو لا سوcoto عشرة تحانا aan soo galin doono casharkeen waxa uu ku saabsan yahay waa tenniskii afraad present perfect continuous tennis continuous tennis hore waxaan soo qaadanay saddex tennis baynu soo qaadanay simple present tennis present continuous tennis iyo sidoo kale present perfect tennis maantana waxaan qaadan doonaa present perfect continuous tennis usage waa isticmaalkiisa is used for an action waxa loo isticmaalaa ficil which started in the past time ficilkaasoo bilowday waqti tagay and still continue ilaa hadda soconaya waa ficil mar hore bilowday ilaa hadda soconaya ayaa loo isticmaalaa present perfect continuous tennis formula waa qaacidadiisa qaacidada saddex qaybood aynu qaybin doonaa mid positive mid negative iyo mid question positive waxa weeyaan waa subject kii ficilka sameynayay plus have been ama has been plus verb ing wata plus object negative na waxa weeyaan subject plus have not been ama has not been plus verb ing la raacinayo plus object question marka uu yahay waa auxiliary verb plus subject plus verb ing wata plus object auxiliary verb ficil caawihiisu waa have been ama has been present perfect continuous auxiliary verb kiisu waa have been ama has been todobadii verb to be I you we they waxay qaadanayaan have been he she it saddexda soo hadheen waxay qaadanayaan has been bay qaadanayaan examples tusaalooyin tusaalaha saddex baynu qaybin doonaa mid positive mid negative iyo mid question hadday negative tahay maskaxda waxaan ku haynaynaa oo meesha soo galaysa not I have been speaking English Ingiriisi baan ku hadlayay waqti hore soo bilowday ilaa hadda waad ku hadlaysaa I have not been speaking English Ingiriisi kumaan hadlayn have I been speaking English Ingiriisi miyaan ku hadlayaa You have been learning English Ingiriisi baad baranaysay mar hore soo bilowday inaad Ingiriisi baranayso ilaa hadda ku guda jirtaa You have not been learning English Ingiriisi maad baranayn Have you been learning English Ingiriisi miyaad baranaysay waa su'aal He has been playing football kubadda cagta ayuu ciyaarayay mar hore soo bilowday ilaa hadda uu ciyaaraya He has not been playing football kubadda cagta ma ciyaarayo Has he been playing football kubadda cagta miyuu ciyaarayaa We have been writing lesson cashar baynu qoraynaa mar hore ayaynu soo bilownay qoraalka ilaa hadda ku guda jirnaa We have not been writing lesson cashar ma qorayno Have we been writing lesson cashar miyaynu qoraynaa She has been reading book bay akhriyaysaa mar hore ayay soo bilowday ilaa hadda ku guda jirta akhriska She has not been reading book ma akhrinayso Has she been reading book miyay akhrinaysaa They have been sending money lacag bay dirayaan They have not been sending money lacag ma dirayaan Have they been sending money ma lacag bay dirayaan It has been eating fish kalluun bay cunaysaa waa xayawaan ama bisad It has not been eating fish kalluun ma cunayso Has it been eating fish kalluun miyay cunaysaa waa su'aal aad baad ugu mahadsan tahay daawashada iyo dhageysiga fiidiyogan haddii fiidiyow ku cajabiyay like noo saar dhiirigelin bay noo tahay